الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxa mahad iskale oo mahadnaqaya gudoomiyaha beelaha la haysooco gubajooga Basir Rashid Abdullahi Gaas iyo Abdi Ahmed Abdullahi oo inooga yimid dibadda gubajooga mar labaad waxaan mahadnaqayaa salaadinta meesha fadhiya Sultan Daakir boqorka Ahmed taliyaha madaxweynaha beelaha la haysooco ee la inoo magacaabay maanta dhaweyto ee inoo magacaabay madaxweynaha Ahmed Maxamed Silaayi inta hadan ka baxo anoo ku hadlaya magaca gubajooga oo anigu lafteeda aan ahay gubajoogi ugu horeeyay ee dalka soo shaqo taga imkan caruurtayda jaamacadaha London ay ku jiraan gubajooga laftiisa oo aan siinayo xoogaa difaaca gubajooga beelaha la haysooca aad iyo aad bay dibadda uga tagaan runta marka loo hadlo reer Soomaaliland ay u qabteen waliba waxyaabo badan oo baahidooda ka mid ahay haddii aan taa falaqeeyo gubajooga beelaha la haysooca beriga hore waxaa jiray waa midgo midgaal lagu sheeg jiray maanta inaga dadka ugu tiro badan marka lagu magac midgaalka sababtoo ah in allaala inta reer Soomaaliland ay qurbaha u baxday oo dhan waxaan ku wada dhignaa waa magaceedu waxaan ku dhignaa dhammaantood magaca Madibaan Musadariyo Yibir Tumaal bay dhammaantood ku wada dhignaa dadka maanta inaga ugu tiro badan boqolkiiba 95 maanta reer Soomaaliland waa isku wada mid horta magacaas halkaas uu naga waxaan joogaa magacaas halkaas ayuu naga haray magacii midgaalka la oran jiray maanta dadku way isku soo wada gaareen oo dadka maanta inaga ugu tiro badan waa aniga halka marka aan ka leexdo tumaha marka loo hadlo dowladda Ahmed Maxamed Silaayi wax qabad badan bay maanta inoo magacaawday runtii waxay ugu dambeeyay oo ay magacaawday la taliyaha beelaha la haysooco Basir Barkad ayuu magacaawday guul baan ka gaadhay oo inaga maanta isu wada joognaa wada fadhina waxa kala farxad ah maanta salaadinta aan arkayo ay wada ag fadhiya ilaahay ma naga gaadho mar baabaan aan lahayn Sultaanba intii dhaweyto waxa ka Sultan Daakir uu ka hadlay shirkii abaarso kelmad buu soo qaaday joraalka lagu soo qaaday inkastoo si qalad loo turjumay kelmadaas kelmad saxabeed marka la eego leeyahay beelaha la haysooco deegaanadu dadkan kale xiidna ma nihin xigaal lama nihin haday una xabaalaha isugu iman lahayn xiidna xigaal haday una xabaalaha isugu iman lahayn wuu ku saxsanaa Daakir kelmadda inuu gaado kontiinaa ugu xireen taa lafteeda inkastoo si qaldan saxaafadda markii dambe looga turjumay sultaanku ku haagsan kelmad kale oo soo qaaday oo ahay salaadinta laftoodu waa inay ka mid ahaadaan maamulka dowladda iyaga laftoodu ay iscaasili karaan taa lafteeda meesha ku jirta sababtoo ah inagu salaadin hore ma dhahaan jirin imika laakiin waxaan leenahay boqol sultaan ilaahay ma hada ka gaadho laakiin sultaanku waa in loo sameeyo hab marka uu doono si uu iscaasili karo haddii kale qabiilkii baa doodanaya qabiilkii ayaa wali aan ka tagin meesha ma dhaafin sidaa darteed waxa aan leeyahay gubajooga laftiisu canaan male wixitaagooda ay qabtaan waa naga soo dalku waa soo shaqo tagay waa naga shaqeynayna waa naga dhex taagan gubajooga laftiisa canaanta la saarin wixii awoodahooda way qabtaan oo way qabanayaan laakiin haddana inay inta ka sii bilgishaan oo dadkooda ay u soo taraan oo aan ka dhex muuqano muraayada aad iyo aad baan u jecelahay ma baahanahay isla mar ahaantaas waxa kale oo fariintii ugu dambeysay faraya gudoomiyaha gubajooga iyo gudoomiyaha in loo soo sheego maanta Soomaaliland in dadku isku mid yahay oo ay soo wada gaadhay waqtigiina la aysan jiray maaha waqtigiina la eriyan jiray maaha waqtigiina la been sheeg jiray maaha maanta ninkaas qabataan reer Soomaaliland ninka xilaad ribaaxaya taas waa hubaal gardarayna isku raacay laakiin se idina naga gaarsan qurbihii dadku maanta inuu isku mid yahay oo maanta reer Soomaaliland looga baahan yahay wax la qabsado dadkana aan la mid nahay magacii xumaayay u sheeg jireen maanta waa la leeyahay oo gidiga ma maanta midgeer wada taa waa in laga xanaaqi inaga ba koodi ma waxa la waxa dibadda ka imanaya ee qurbaa ka wada imanaya midgaan iyo Yibir iyo Tumaal midba koodi dhibay taa qalbiga galiya dadka maanta inaa ugu tiro badan laakiin maanta ay wax la qabsan dadka aan la maal wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh